calanka.com. They officially open it, then you can start. Jubbaland. So waxaan taliya aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad maanta nagu soo booqato magaala madaxda meelkugaarka ee Kismaayo gaar ahaan dugsiga tababarka ciidamada booliiska ee Jubbaland kaasoo aan rabno mustaqbalka haddii aad nala garato inuu noqdo meel tababar rasmi ah ee iska bedelaan ciidamada booliiska ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan aad ugu faraxsannahay safarka dheer adiga dhammaan hogaamadaadii iyo taliye xigeenkaagii oo wada socda aad maanta nagu soo siyaarataan si aad noogu furtaan dugsigii tababarka awalan hadday inta joogina buugaagtii macallimiintu asla keenina fadhigeena dambeeto wuxuu noqon doonaa wax teknika ah and we would like to see more support to Jubbaland police forces and I would also like to thank and appreciate the role of Amisom police for taking place. They did a good job in preparation and vetting all this process, and we would like also to see more in the UN police also and other international partners, because as you can see, we are in need. As Jubbaland police, we need the support, we need the training, we need the equipment and sustainability. Thank you very much for your continuous support to Somalia in general. So we came now for the We came here to witness the opening of the training school facility and the IJA. As part of our mandate, we are to support the Somali in its effort to get peace on its land. We are training the new police recruits. We vetted them about a month ago, and very soon we will commence the training of the recruits. calanka.com.